بسم الله الرحمن الرحيم. كسر هذا برنامج كنا حكمتها وإن كسر حكمته النبوغ تطبق بقولي تطبق حكمتات أو قري عبد الرزاق حسن قوة الخات كبدن وحيصير نتران وحبدن وحيافيا وحبدن balse marka ay tagaan dib uma soo laabtaan karaamadu waa inaad bixisaa wax ka badan intaad awoodid sharaftuna waa inaad qaadataa wax ka yar intaad u baahan tahay bilowga nolosha ninka iyo caafimaadkiisu waxay isla raadiyaan hantida dhammaadka nolosha ninka iyo hantidiisu waxay isla raadiyaan caafimaadkii haddii calaamadidu ay gubi karto xayrta jirka salaaduna waxay gubi kartaa dembiyada karaamadu waa sidii dawadaada oo kale ka fogee meel ay ilmaha gacmahoodu gaari karaan sababta keliya oo baadilku sii jiro waa aamusnaanta kuwa leh damiirka nool ilaahay ku asturay adigoo saaran saqafka macsida kuma fadaxinayo adigoo ku hoos jira garbaha toobadda raaxa uma sugnaanin qof xaasida saaxiibna ma galo qof laba wajiilaha aragtina ma laha qof qiyaano leh haybadna ma laha mid dabeecad xun qofka noloshaada macnaha u leh maaha midkaad dareentid joogistiisa ee waa midkaad tabtid maqnaanshihiisa haddii aadan qof u noqon karin waaqic qurux badan ha u noqonin xusuus fool xun maalku waa adeega fiican iyo hogaamiye xun hogaamintu maaha in awaamir la qaato oo keliya ah ee waa ku dayasho mar kasta oo ay aqoontu badato waxaa yaraada ereyga aniga ah mar kasta oo aqoontu yaraato waxaa bata isla ereygaasa aniga sharaftaadu waa naftaada labaad ee ilaasho si aanad laba mar u dhiman ma rumaysto 3 qof cabsan markuu tukanayo hantiilaha marka uu dhaaranayo iyo haweeneydu marka ay ooyeyso mararka qaar isku daygaaga aad ku muujinayso inaad tahay qofka ugu fiican ayaaba sidiisa wax ihaano haddii aad aaminsan tahay in waxbarashadu tahay mid qarashkeedu badan yahay bal ordoo soo tijaabin jahliga qofkii aanan ka mahad celin barwaaqada u haysto waxaa laga celiyaa isagoo aan dareemin ninku waa masayraa maxaa yeelay waxaa ogyahay xumaanta ragga haweeneydu waa masayrtaa maxaa yeelay waxay ogtahay dhagarta dumarka markii guuldarradu badato waxa kaloo bataysaa wadaniyadda dharkaaga ha ka dhigin waxa ugu qaalisan ee aad sidato ilaa aad maalinka ogaato in naftaadu ka raqiisan tahay waxaad xidhan tahay sidee ayaanu ka dhaadhicin karnaa jiilka cusub in waxbarashadu tahay furaha guusha iyada oo ay nagu hareersan yihiin aqoon-yahano sabool ah iyo tuuga hanteenayaala waxa laga xumaado waxa ah inaad ku nooshahay waddan aanad ku riyoonaynin waxaan ka ahayn inaad mar uun ka tagtid dadkoo dhammi waxay rabaan inay jannada aadaan oo jannada galaan haddana qofna ma rabo inuu dhinto ma bedeli kartid jihada ay dabayshu ka imanayso balse waxaad bedeli kartaa jihada uu markabkaagu u socdo aamusnaanta lafteedu waxay leedahay cod u baahan qof fahma waxaan nahay dad adag hurdada ayaan ka kacnaa si aan u noolaano isla noloshii isla dadkii isla meeshii taas lafteeda ayaaba raaxaa nabi ibraahim calayhi salaam waxa uu jeclaan lahaa inuu aabihii muslim yahay nabi nuux calayhi salaam waxa uu jeclaan lahaa inuu wiilkiisu muslim yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeclaan lahaa inuu adeerkii muslim yahay aniga iyo adiga waxa uu rabbi naga dhigay muslim innagoo aan weydiisan ee alxamdulilah dhe alxamdulilah ha aaminin qof sabab la'aan ku ammaanay adigoo la jooga waayo adigoo maqanayo sabab la'aan ku caayi doonaa nolosha qaladka ugu weyn waa inaad ka tanaasujo mabaadidaada nololeed ka fogaanshaheena dadka looma fasiran karo nacayb iyo isbeddel keliya haanshuhu waa waddan ay jecel yihiin dadka cuqalada ah sidoo kalena jecelyihiin naftooda wakhti la qaataan maxaa ka sahlan ka sheekaynta sabirka marka ay musiibadu aysan ahayn musiibadaada dadka in runta lagu dhibo ayaa ka wanaagsan in beenta lagu raaligeliyo haddii aad doonaysid in riyooyinkaagu ay run isku beddelaan waxa ugu horreeya ee lagaa rabaa waa inaad hurdada ka kacdaa diblomaasiyaddu waa inaad ayga ula ciyaartaa si degan
ilaa aad ka helaysid dhagaxaad nafta kaga qaatid. cadaaladda in la ogo ayaa ka dhib badan in la tumiyo dulmiga. Nelson Mandela.